waxaa magaalada Stockholm ee wadanka Sweden ku qabsoomay shir soconaya 2 maalmood oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano siyaasiyiin iyo xildheerayaal reer galmudug ah oo ka kala yimid wadamada Finland, UK, Denmark, Sweden, Holland, Ireland, Germany iyo wadanka Turkiga. shirkaas oo loogu gogol xarayay sameynta dalad guud oo midaysa qurba joogta galmudug ee qaaradda Yurub. aniga waxaan ahay nin ka socda dalka Finland oo waxaan ka mid ahay dadka halkan lagu casuumay oo wada shaqaynta ka dhaxaysa ururkan idinkeedii casuumay marka barshoonas magacayga Cabdifatax la yiraahdo Cabdifatax Cabdullaahi Jaamac Cabdifatax Janagal dadku yaqaanaan barshoonas inteena badan waa naqaana inteena saqoon haddaan isbaranay barshoonas walaalayaal shirkeena maanta intaanan furin wuxuu yahay waxaan jeclaan lahaa walaalkeen Faarax oo gudoomiyaha galmudug inuu noo furo. بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Faarax Aadan Yuusuf waxaan ahay gudoomiyaha ururka galmudug waxaan idin leeyahay dhammaantiin marti sharafta soo dhawaada meel kasta oo ka timaadaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaan idin leenahay soo dhawaada gacan furan soo dhawaada halkan shirka aan ku qabanayno maanta wuxuu yahay waxaan qorsheynaynaa shir ka dhici doona Turkiga oo aan galmudug ugu sameynayno ururada galmudug qurba joogta aan dalad guud ugu dhisayno. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Habane Xasan waxaa gudoomiyaha ururka isbaahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden waxaanan aad ugu faraxsanahay kulankan maanta halkan ku qabanaysiin oo aan aaminsanahay inuu yahay horumarka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ta kalena oo ku faraxsanahay haddaan nahay urur xubin naga ah oo gudoomiye Faarax sidaan quruxda badan oo godosha u dhigayo in ururada ay ka tahay inay ku wanaagsan tahay in lagu daydo waxaan aaminsanahay urur walba annaga xubin naga ah in uu ummadda Soomaaliyeed u adeego sidaan quruxda badan oo aan maanta halkaas ugu nimid in dalad guud ururada ay ku midoobaan horumarka galmudug iyo ummadda ka soo jeedaba galmudug marka waa maasanta kale wixii kalena waa isla wadaagi doonaa marka Axmed Bari intaasaan ku ekeenay insha Allah maasanti. بسم الله الرحمن magacayga Cabdullaahi ayaa la yidhahaa Cabdullaahi Axmed Sabriye Stockholm aan deganahay laakiin magaalada Borlänge ama Dalarna oo ururkan lagu aasaasay aan ma dhihi kara asal maadaama aan wax ku soo bartay jaamacadda ka soo dhigtay ka soo shaqayn jiraan deganaan jiray Faarax markuu aasaasayna ururkan wax badan kala soo qabtay waa ku faraxsanahay heerka uu gaaray maanta iyo meesha uu marayo maadaama aan la socdo meesha laga soo bilaabay. بسم الله waxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdikariin waxaan ka imid magaalada gudoomiyaha ayaan wada joognay oo markii ururkan la dhisayay iyo jaaliyadan baan qayb ka ahayn waan ku faraxsanahay inay heerkan soo gaarto waxaan ahay macallin ama bare wax ka dhiga iskuulada ku yaala degmadaas luqadda Swedishka iyo Englishka xisaabta waxaas ka caawiya jaaliyad weyn oo urur weyn oo meesha ka dhisana waxaan ka ahay xubnaheeda firfircoon oo ka tirsan waxaan xubin ka nahay ururka isbaahaysiga Soomaaliyeed ee gudoomiyaha hadda hadlayay Habana uu madaxda u yahay marka waan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka barnaamijkan inuu heerka soo gaaro iyo heerar ka sii badanba inay sii gaarto insha Allah taala intaasaan ku soo koobayaa waad mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم aniga waxaa la yiraahdaa Maxamed Maxamuud Guure laakiin inta badan guuraha la soo qabtaa mararka qaar markaan rabo dadkana imtixaan waxaan iraahdaa magacaygu saddexan ma la sheegi karaa rag qaar oo aan saaxiibanayn oo wax badan aan saaxiibo ahayn laga yaabaa magacaygu saddexan inaysan keeni karin guusha waxaa la yiraahdaa sideedaba kun aabay leedahay guul daradana waa agoon marka ururkan hadda galmudug la yiraahdo inuu guuleystay dad fara badan oo sheeganayaan qayb ka ah qaar badan oo naga maqanna waa sheegan doonaan laakiin waan ku faraxsanahay runtii in intaan uu soo gaaro. Assalaamu calaykum horta dhamaantiin waan salaamayaa magacaygu waa Xanaan Shidane marka nin kasta asaanti ceelkan saalir anigu horta waxaan ahay reer galmudug aan ku dhashay ku soo barbaaray dadka xamar ayay soo aadeen hablaba kala dambeeyay laakiin anigu galmudug aan ka imid reer galmudug aan ahay haddana waxaan u shaqeeyaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed wariye ayaan ahay marka waxay soo casuumay ururka galmudug ani magacayga waxaa la lahaa Abshakuur waxaan ka imaaday Jarmalka in Jarmalka waxaan urur Soomaali culture dhahay ayaan waxaan ka ahay in
labaad waxaan sii ahay xiriiryaha galmudug state jarmalka galmudug muddo 10 sano ah ayaan ka shaqeeyaa sano kasta waxaan tagaa 2 mar. bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah salaatu wasalaam calaa rasuulillaah runtii sharaf weyn bay tan aan kasoo qayb galo maanta xafladan amba shirkan magacayga waxaa la yidhaha saadiq daahir mire fursadan kolley inaan uga faa'iidaysto ururkan runtii aad iyo aad buu mahadsan yahay wadankan Sweden dhowr goor horena waan imid ururo badan baan u imid wadamo badan oo Yurubta ka midna waan tagay xataa Mareykanka waan u tagay shirarkan oo kale marka waxa uu shirkan igaga duwan yahay oo runtii aan anigu maqanaysaan u arkay shirkan maadaama aad intiina badan reer Sweden waxaad moodaa meelaha Soomaalidu joogto marka miitinada la qabanayo meelaha wax soo saarka miitinadooda wax ka soo baxaan shirar wadamo badan oo tagay laakiin Sweden shirarkan u imaado wax soo saar baa jira oo waxba maqanaysa fishing fiican bay leeyahay marka dambe waxba ka soo baxa magacayga waxaa la lahaa Cabdullaahi Maxamed Xuseen waxaa ku magac dheerahay Taajirow dadku waxay ii yaqaaneen Taajirow waxaan ka imid Holland oo aan muddo 12 sano ku noolaa waxaa ka tirsanahay urur la dhaho Center for Media and Dialogue oo urur saxaafadeed ah oo dooda iyo wax qabto oo xagga ku leenahay sidoo kale waxaan hadda matalaad u ahay oo matalaa dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda galmudug ee degan Holland libaanka iyo wasiirku hadal dardaaran aad u macquulan siiyay wasiirka kalena waa mahadsan yahay kaliya waxaan ku darayaa kaliya meel kale ka raadin mayno waxaan ka raadinaynaa walaalkay Faarax anoo aad ugu mahadcelinayaa runtii hadda arintan wuxuu aad isugu xil saaray ilaa 4 sano ra'yigiisa fikirkiisa ku timi runtii wuxuu u macaartay u biyeystay buraashadiisa u biyeystay isagoo raba xagee ka raadiyaa galmudug runtii galmudugtii aan naqaanay waa soo dhaaftay Burlenge waa soo waday doolana waa gobolka aan deganahay doolana waa soo dhaafsiiyey maanta wuxuu yiri Yurub aan isu raadinayaa runtii waa wax aad loogu amaano looguna maartay hambaliyeeyo runtii arinta kale maartay qofku markuu wax qabanayo runtii waxa rabaa inay ku jirto wax maartay horta rabitaanku waa muhiim qofku markuu rabo inuu wax qabto rabitaanku uu ku jiro markaas intuu rabo dhaqaajin karaa waa inuu motorku dhaqaajinaya uu jiro taasna waxa uu magaranaysaa Faarax waxaa jiray waxa isaga ka guuxayo ah meeshuu rabo inuu gaaro taasna wali safarkeeda waa ku jirnaa waa tan hore loo sii socdo waa tan midaynta keeni doonta insha Allah dhammaantiin waa idin salaamay magacaygu waa Idil Xuseen waxaan ka imaaday wadanka Holland kulay dadka inta meeshan joogta badanaa waxay ka tirsan yihiin ururo qof walba urur ka imaaday bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Cusmaan Xayale laakiin wax ii yaqaan ma jiro sida ninka saaxiibkay uu sheegay Cali Buuji ayaa la yaqaanaa waa naynasteeda taasaa ku caan baxday anigu waxaan ahay ninka aan weligiis galmudug tegin haddana u dhashay isbitaal Martiina ku dhashay xamar jajabaan ku koray boondeeran aaday ugu dambeyntii wardhigle baan ahaa galmudug waa ka dhashay laakiin weligii ma tegin mana soo arkin xataa xamar laakiin luuq walbaan aqaanaa booliisaan ahaa oo tootan ka shaqaynayay si fiican aan u aqaanay Cabdullaahi iyo qolo la mid ahaa Copenhagen ugu yimaadeen waxay yiraahdeen iyo galmudug aan dhisaynaa waa galmudug markii soo baxday ka bacdi dadkii aan wax geeyno meelii aan wax geeyno xageen geynina iraan magaalooyin badan ay tariyeen maxbad kama aqaan haye haddaan ma iraa waa ka hor mid maahano hawshan waa joogsatay ilaa aan marka dambe aan tartiib u barto oo aan meel walba ka barto ani saraakiisha saraan ahay saraakiisha haddaan ahay ileen wax ruqsiyay male waa lii eri maahane waa ku celinayaa magacayga Cali Buuji waaye Cali Cusmaan Xayale Copenhagen Denmark bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waan salaamaya horta akhyaarta magacayga intaan u galin horta waa u mahadcelinayaa akhyaarta nacasuntay oo maamulaha iyo ugu horeeyaan facility noo sameeyey iyo Faarax iyo walaalaha kale ayagana nagala soo qaybgal aad u mahadsantiin ka soo qaybgalaasha sidoo kale magacaygu horta waa Cabdullaahi Xasan Canshuur anigu waxaan ku dhashay Dhusmareeb laakiin xamar jaamacadan ka dhigan jiray marka dadka qaar waxa laga yaabaa hortiis inaan imid oo ku dhasheen laakiin marka halkaasaan ku daynaynaa waa kaftan intaas soo dhawaada aniga horta Denmark ayaan deganahay aniga iyo Xaaji Cali Korneelka oo gudoomiyaheena ah jaaliyadda galmudug halkaas ururo badan iyo howlo badan waa ka soo qabanay deegaankan waa ka soo shaqaynay wax badan bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah bacd marti sharafka dhammaan halkan joogto waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa Deeq Cali Digfeer
waxaan ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda ordhigle la yidhaah waxaan deganahay dalka finland gaar ahaan magaalada helsinki hadda original waxaan ka soo jeedaa mudug gaar ahaan galmudug waxaan oday ka ahay ama xubin ka ahay urur la yidhaahdo iftin education development ee ka shaqeeya dalka magaaladaas la yidhaahdo galmudug mar labaad waxaan leeyahay martida waa salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Well, first off, my name is Elif and I'm from Turkey. I really loved being here. I am very happy that I'm here and met with these beautiful people. And I had a chance to go see the Stockholm. I love the city. I love the people. And thank you for hosting us here. And we hope to host you in Antalya in June. I hope you like it too. dalladan ayaa noqon doonta mid ahmiyad saari doonta tayeynta iyo kobcinta aqoonta dhallinyarada reer galmudug ee ku nool yurub iyo soomaaliya, mideynta aqoon-yahanada iyo waxgaradka qurbajoogta reer galmudug, isku xirka hay-adaha ganacsiga, waxbarashada iyo siyaasiyiinta yurub iyo soomaaliya siiba deegaanka galmudug, iyo xoojinta wadajirka midnimada shacbi weynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaa kulankan isugu imaan doona oo lagu casumayaa madaxda ururada reer galmudug ee ka dhisan qaaradda yurub, aqoon-yahanada reer galmudug ee ku nool yurub, madaxda maamulka dowladda goboleedka galmudug iyo safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga. waxaa mahad gaar ah leh jaaliyadda galmudug ee magaalada buurlenge ee uu hogaaminayay guddoomiye faarax aadan yuusuf iyo xogayaha guud ee ururka xasan liisho oo ka soo shaqeeyay fulinta shirka iyo weliba abaabulka kulanka lagu dhisayo dallada guud ee qurbajoogta reer galmudug ee yurub, taasoo lagu qaban doono dalka turkiga.